waxayna noo sheegeen ilaa 500 ilaa 600 inta u dhaxaysa oo bukaan inuu qaabilay waa la hadalnaa hadda xalay ugu dambeysay ilmahan aniga adeer u ahay xalay lagu daaweynayo oo walaalkay dhalay burburkii dalka ka dhacay kadib waxaa dib loo howlgeliyay isbitaalka guud ee degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ee maamulka dowlad goboleedka Galmudug kaasi oo baahi weyn u qabeen bulshada ku nool magaalada Ceelbuur oo muddo dheer dhibaato xooggan ku qabay helidda adeegyo caafimaad waxaana isbitaalka guud ee degmada Ceelbuur dib u furidiisa gacan weyn ka geystay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanka Ceelbuur waxaana hadda isbitaalka Ceelbuur si toos ah adeegyo caafimaad ugu helaa bulshada ku nool magaalada Ceelbuur iyo nawaaxigeeda Nabadoon Cali Sheekh Maxamed Faarax oo ka mid ah waxgaradka deegaanada Galmudug ayaa waxa uu beeniyay hadallada sheegaya in isbitaalka guud ee deegaanka Ceelbuur ay la wareegeen kooxda Al-Shabaab waxa uu sheegay in isbitaalka lagu daweynayo dadka degan magaalada Ceelbuur isla markaana ay u soo adeeg doontaan waxa uu ugu mahadceliyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanka Ceelbuur dadaalkii xooggan ay ku bixiyeen dib u furidda isbitaalka waxa uu ka codsaday in ay sii laba jibaaraan kaalmada ay siinayaan isbitaalka guud ee magaalada Ceelbuur si loogu daweeyo dadweynaha ku nool magaalada Ceelbuur iyo nawaaxigeeda hadalkaas oo ahaa Ceelbuur isbitaalka ku yaala farabaganda laga sameeyay oo la yiri shabaab qabsaday dadka shacabka laga saaray isbitaalkii dadkii ku jira laga bixiyay hadalkaas oo ahaa hadal aan raad iyo sal lahayn muraadkii laga lahaa ma fahmi karna annaga waa fahmi weynay hadalkaas markaan ka hadalnay waxaan sheegnay sidii xaqiiqda ahayd oo meesha ka jirtay isbitaalkaas shacabka iska leh waxaa maalgeliyay oo dib u dayactiray isbitaalkan asalkiisa hore dawladda Maxamed Saad Barre dhistay marxalado badan oo soo maray intii burburka ugu dambeyntii marka waxaa dayactiray jaaliyadda reer Ceelbuur ka kooban oo dal iyo dibadba joogta dad badan oo muxsiniina ayaa wuxuu la baxay oo dadkaas u dayactiray Ilaahay ajir xasan ka siiyo wuxuu hadda furan yahay isbitaalku 27 maalmood aan u maleynaa waxayna noo sheegeen ilaa 500 ilaa 600 inta u dhaxaysa oo bukaan inuu qaabilay waa la hadalnaa hadda xalay ugu dambeysay ilmahan aniga adeer u ahay xalay lagu daaweynayo oo walaalkay dhalay arrintaas marka in isbitaalkaas waxaa dayactiray oo ajir ka raadsaday oo hantidooda geliyeen ay yihiin shacab reer Ceelbuur ah haddana wuxuu u shaqeynayay ay yihiin shacab reer Ceelbuur kaliya maaha qayb hiiraan ka mid ah waa laga yimaadaa bukaan u qaabila shabeellada dhexe waxaan la leenahay xuduudada ka yimaada oo bukaanaa jiifa laga keenay Galmudug waaba xaruntii meesha intaasoo dhan marka meesha ay ku shaqaysanayeen oo loogu shaqeynayo lagu daaweynayo in la yiraahdo waa la qaatay wax aad u culus ay noqotay wax la yaabay noqotay waxaan idin codsanahay hadalkaas cid uu ka yimidna in dib loo raaco fiiro gaar ah loo yeesho dantay kala haayeen in la weydiiyo haddeerna waxaan idin cadeynaa sidaan hore u sheegnay isbitaalkaas shacabka iska leh degmada Ceelbuur ku yaala dadka muslimiinta meeshay doonaan ha ka yimaadaan aan loogu adeegaa ayaga yaana dhex jiifa waxa la sheegay oo la leeyahay waxba laga qaatana wax ka jira ma inta san idin sheegay waana